ninkan ayaa ka shaqayn jiray nadaafadda guri haweeney taajirad ah. maalin baa si kama ah uu u jabiyey laambadii kristaylka ahayd ee qaaliga ahayd ee ku dheganayd qolka fadhiga. wuxuu ogaa inuusan weligiis awoodi karin inuu bixiyo lacagta lagu bedelo. wuxuu ku ballan qaaday inuu guriga ka shaqayn doono si bilaash ah ilaa uu ka kaafeeyo khasaaraha. laakiin haweeneyda hodanka ahi gebi ahaanba xiisa uma qabin. ugu dambayn ninku wuxuu bilaabay inuu iska dhigo mid sabool ah oo liita. qalbigeeda ayaa jilcay waxayna aqbashay qiiradiisii. maalintii xigtay ninku wuxuu daryeelay dhammaan shaqooyinka guriga inta haweeneydu ka shaqaynaysay shirkadeeda. markay guriga timaaday shukumaanadii cusub baa diyaarsan. sariirta si quman baa loo hagaajiyey oo xaashiyo nadiif ah leh. mar walbana cunto kulul baa miiska u taal. nolosheedu way ka raaxo badatay sidii hore. ma jiraan sariir fowdo ah oo ay ku dhacdo iyadoo daalan ama maalin kasta inay ku riyootay qof ikhtiraca tirtira makiib otomaatig ah. habeen markay shaqada ka soo laabatay waxay ku dhacday fadhiga iyadoo daal dilay. ninkii baa si degan uga soo muuqday wuxuuna si tartiib ah uga bilaabay inuu ka tirtiro meekabkeeda. wuxuu si buuxda ugu guulaystay inuu qalbigeeda kasbado. xitaa dharka oo u baahnaa in la geliyo fiilada wuu u sudhay si naxariis iyo taxadar leh. markay eegto ninkan quruxda badan waxay bilaabaysaa inay ka walwasho. mar walba markay suuqa u baxaan gabdho ayaa hareerihiisa ku wareegay si ay ninka u ilaalsato. waxay isku dayday inay yarayso wakhtiga uu bannaanka joogo. ugu dambayn haweeneydu waxay qaatay go'aan. waxay doonaysaa inuu noqdo shaqaale gurigeeda degan oo buuxa. waxay ka codsatay inuu iska casilo dhammaan shaqooyinkiisii kale oo uu noqdo nadiifiyaha guriga uun iyada u shaqeeya. laakiin wakhti fiican ma sii raagin. maalin baa walaalkeed soo booqday guriga. walaalkaa wuxuu ahaa maamulaha shirkad weyn. si aysan u dhalan faham qaldan haweeneydu waxay u sheegtay ninka guriga joogay inuu degdeg u dhuunto. iyaduna waxay isku dayday inay walaalkeed ka hor istaagto inuu guriga soo galo. laakiin walaalkeed ayaa haddana arkay wiilka. haweeneydu ma garanayn sida ay qoyska ugu sharaxdo. wiilka wuxuu siiyey nacnac yar si uu qalbigeeda u dejiyo. haddii aadan fahmin aday ku taalaa. subaxdii xigtay wuxuu reebay warqad iscasilaad ah oo uu ku tegay. miiska cunnada waxaa saarnaa quraacdiisii ugu dambaysay ee uu sameeyey. maalmihii xigay gabadha mar walba waxay ka fikiraysay wiilka. mar ayaa mid deliveria soo galay. waxay mooday inuu wiilkii soo laabtay laakiin waxay ogaatay inay keliya sawiraysatay. gabadha waxay garwaaqsatay inay dhab ahaantii jeceshahay wiilka. ugu dambayn waxay go'aansatay inay wacdo oo ay kulan u ballansato. waxay u baahnayd inay u sheegto waxa ay dhabdhab uga dareemayso. 지금 당장 와요. 지금 당장 와달라고요. 나 있는 대로. haddii aadan fahmin waxay u sheegtay inuu soo laabto un maadaama ay jeclaatay.